waxaan imid hayna keenay waa xafiiska ra'iisul wasaaraha xasan khayre si qurux badan runtii waa la ii soo dhaweeyay anoo waliba xambaarsan magaca culimo u diinka Soomaaliyeed runtii waxaan ka wada hadalay waa masiirka iyo halka loo wado iyo halka la doonayo waliba in la dejiyo wadankan waa runtii waajib diini ah in culimo u diinka ay runtii ay la hadlaan oo ay u yimaadaan u naseexeeyaan madaxdooda sababtoo ah ilaahay baan runtii nagu guubaabinaya rasuulka nagu guubaabinaya islaamka nagu guubaabinaya oo dhahaya diintu waa naseexa weeyaan diintan yaa xambaarsan culimo u diinka xambaarsan maadaama culimo u diinku ay xambaarsan yihiinna yay ugu naseexeynayaan waxay ugu naseexeynayaan waa culimo waa madaxda waa shacabka waa mucaaradka waa insaankan maxaa yeelay diinta waxaa loo soo dejiyey waa insaanka waxaase dembi ah waxaanse ilaahay ogolayn in diintiina aada xambaarsan tahay dadkii quudan lahaa lagu quudin lahaana inay ka qatan yihiin culimada inay garab istaagaan naseexa inay ula garab istaagaan madaxdooda waa wax aad iyo aad u wanaagsan eeg xabiibkeena sala allahu calayhi wasalam iskaba dhaaf dadkii muslimiinta ahaa ee uu la joogaye diinta naseexadeeda wuxuu la garab istaagay gaaladii waa ku waraaqaha u qori jiray waa ku u tegi jiray waa ku saxaabadiisa intuu u diro iyagoo wufuud ah waa ku u tegi jiray oo ay u geyn jiray oo u diri jiray marka diintan waa naseexo waxaan aad iyo aad ugula talinayaa una runtii dhiirigelinayaa culimo u diinka xambaarsan diintan dadka kale ee maaragtay xataa cuqaasha ah mutacalimiinta muthaqafiinta wax soo bartay cilmigoodaas ay barteen in ay la wadaagaan uguna naseexeeyaan madaxdooda si qurux badan baa runtii la ii qaabilay xaba adduunye iyo hanti adduunyana kamaanan soo raadsanin xaq ay nagu lahaayeen ayaanu runtii u gudbinay si qurux badanna maaragtay waa ay u qaateen way u baahan yihiin madaxdu waa dad runtii maaragta adeegayaal ah waa adeegayaasha shacabka weeyaan culimo u diinkuna waa adeegayaasha shacabka weeyaan waxa marka loogu adeegayo shacabka oo ay madaxdu ugu adeegayaanna waa in runtii culimo u diinka ay zaad uga yeelaan oo ay uga dhigaan madaxdooda waxaan leeyahay culimo u diinka dal iyo dibadba jooga haka hakranina meel fog iyo meel dhowba uga soo naseexeeya madaxdiina runtii waxaan arkay halkanna aan ku arkay saan shalay u arkay qalbiyada wanaagsan ee muqdisho waxaan arkay runtii madax qalbi wanaagsan oo runtii ogol naseexada ogol ilaahayna waa u baryeynaa runtii inuu ilaahay la garab galo xil culusna way qaadeen xilkaa culus kuwa ka soo baxa allaha ka yeelo kuwa ummadan hore u dhiga allaha ka yeelo kuwa cizigii ummadda lahayd qabkii ummadda lahayd soo celiya allaha ka yeelo runtii waxaa wax lagu wada qaban karaa waa wadajir ayaa wax lagu wada qaban karaa madax iyo shacab wada jira ayaa wax wada qaban kara waxa naga dhaxeeyana waa qarankan inaan ilaalino waa waajib diini ah wadajirka iyo midnimada inaan ilaalino waa waajib diini ah aynu wada ilaalino ilaahayna waxaan ka baryayaa wadankan cizigiisii allah soo celiyo ku noolaada meel walbo aad joogtaan Soomaaliya cizi iyo sharaf ku noolaada